السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو غناكسن وبرنامج كني تحنها أها هيلينكي هليجا بإذن الله تعالى حلقة ذهن وحان كجحد للدونا مواقف كمذا مواقفتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ابن كثير وحا وكسوري كتاب كيس سيرة ذا وحا وكوري عائشة رضي الله عنها وحا اتري markii ay kulmeen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr ayaa Abu Bakr waxa uu aad ugu celceliyay nabiga sallallahu alayhi wasallam in uu ka soo baxo dhuumashada iyo qarinta uu islaamka qarinayo fatradii lagu jiray ad-da'wa sirriya ama dacwadu ay sirta ahayd. nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri Abu Bakr waynu tira yarnahay. Abu Bakr muu joojin inuu ku celceliyo in nuurka iyo khayrkan uu muujiyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam ila uu rasuulku ka yeelay. dabadeedna rasuulka iyo saxaabadu waxay u baxeen Kacbadii ama masjidkii xaramka ahaa ay u baxeen. Abu Bakr ayaa dhex istaagay isaga oo khatiib ah. Abu Bakr markaa waxa uu soo muslimay maalmo ka hor ama waqti kooban ayuu soo muslimay. waxa uu noqday khadiibkii ugu horeeyay ee Ilaahay dadka ugu yeedha. markii ay arkeen gaaladii Quraysh ayay Abu Bakr hal mar ku dageen gacanta ayayna saareen. Abu Bakr waxa si xun ugu soo dhawaaday ninkii Cutba la oran jiray. waxa uu bilaabay kaba adag oo uu sitay inuu wajiga kaga garaaco oo uu dhiig kaga keeno beerkana uu kaga dago ilaa uu Abu Bakr isbedelay ama uu miir beelay. dabadeedna garaacidii isaga oo ku wada ayaa waxa uu yimi Abu Bakr tolkii oo reer Taym ahaa waxaanay hor istaageen Quraysh waxaana yiraahdeen haddii uu dhinto Abu Bakr wallahi waxa aan uga argudi doonaa Cutba. Abu Bakr oo markaa miirla oo aan eray iyo waxba lahayn ayaa meeshii laga qaaday. gurigiisii ayaa la geeyay. hooyadii baa dul taagan. markii uu soo miirsaday ayuu isagoo wax kale cid kale aan weydiin waxa uu yiri rasuulkii Ilaahay maxaa uu sameeyay. hamigiisa iyo waxa uu ka warwarayay ama fikirkiisu waa rasuulka iyo risaalada ama dacwada. qoomkiisii oo cadaabay oo si xun u galay oo jir dilay kala moo hadlin. hooyadii ba markaa waxay ku tiri hooyo wax cun jirdil baad ka soo baxday waa lagu dhibaateeyay. markaasna wuxuu lahaa rasuulkii Ilaahay muxuu sameeyay. rasuulkii Ilaahay xaaladiisii ka warrama waayo goob bay wada joogeen oo dadka wala wada garaacay. markii ay tiri waxay ku tiri anigu saaxiibka waxba kama ogi ayuu wuxuu yiri waxa uu tagtaa Ummu Jamiil Fatima bint al-Khattab waxaanad weydiisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam way u tagtay waxay tiri inankaygu wuxuu ku weydiinayaa Muhammad. Ummu Jamiil baa waxay tiri ma ogoshahay inaan ku raaco inankaagana ku raaco. waxay doonaysaa dacwadan sirnimadeeda inay ilaaliso. dabadeedna ha ayay tiri way u tagtay. dabadeedna Abu Bakr baa weydiiyay ku yiri rasuulkii ka waran. waxa ay tiri horta dadka sidan kugu sameeyay wallahi dad khayr leh ma aha. dad sidan kugu sameeyay dad khayr leh ma aha. Abu Bakr markii uu ku celceliyay ayay tiri Abu Bakr waxayna la joogtaa hooyada oo ina maqlaysa walina may islaamin hooyadii. dabadeedna waxa uu ku yiri Abu Bakr isaga oo aqoonsan qoyskiisa gaar ahaan hooyadii inaanay waxba ka faafinayn waxba insha Allah la calayki buu yiri wax dhibaato ma laha. ii sheeg rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo xaaladda uu ku jiro. dabadeedna waxay tiri rasuulka Ilaahay wuu nabad qabaa waanu caafimaad qabaa alxamdulillah. wuxuu yiri xagee buu joogaa. waxa ay tiri wuxuu joogaa daar ibn abi waxay ku tiri waxa uu joogaa daar ibn abi al-Arqam. dabadeedna wuxuu yiri wallahi waxa aan ku dhaartay in aanan cunto dhadhaminayn cabitaan cabayn ilaa aan arko rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxa uu jeclaa rasuulka ilaa jacaylkiisu uu dhaafay jacaylka uu nafta iyo hantidaba jecel yahay ehelka iyo waladkana uu jecel yahay. waana sida qofka muslimka ahi in uu u jeclaado rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo diinta iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu jeclaado. dabadeedna waxay sugeen inta bal cagtu dagayso waxa ay garab galeen Abu Bakr ilaa ay geeyeen daartii ibn Abi al-Arqam. markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam arkay ayuu oo muslimiintuna ay ku soo yaaceen ayuu rasuulku u beer jireecay oo markaa qalbigiisu u dabcay saaxiibkii. dabadeedna wuxuu ku yiri Abu Bakr
يا سيدن محي سيدن كوغو سميين markaasuu yidhi biabii anta wa ummii laysa bii min ba'sin ilaa maa naala alfaasiqu min wajhi ya rasuula allah wallaahi rasuulka ilaahay wax dhibaataa iguma dhicin faasiqu waxa uu wejigayga u geystay mooye dabeedna rasuulka sal ly slam ayaa waxa uu ku yidhi wuxuu rabaa fariin cajiiba inuu gudbiyo waxa uu rabaa diintii inuu ehelkiisa iyo khayrka la jeclaado wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow tani waa hooyaday aad bay baariyad iigu tahay ilaahay diintiisa ugu yeedh una ducee in ilaahay uu naar ka badbaadiyo rasuulku wuu u duceeyey sala allahu calayhi wasalam isla goobtii baa ilaahay qalbigeeda iimaanka ku tuuray waxaanay tidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah hamigiisu abubakar waxa uu ahaa inuu dadka ka badbaadiyo naar dadka ugu dhow ee qaraabada ah ayaana ugu mudan hooyaduna waa qofka khayrka iyo wanaagga ugu mudan dabadeedna hooyadii ayuu u duceeyey sidaa ayayna ku islaamtay hooyada oo khayrkii iyo wanaagga aanad u sheegin ummadda kale inaad u tagtidba ma aha waalidka ayaa ugu mudan oo fariinta la gaadhsiinaya mowqifka ka warrama wallaahi waa mowqif cajiib ah oo ku tusinaya xaqa iyo saacadda uu istaagay abubakar waxa uu ku tusinayaa abubakar cumrigiisii oo dhan inuu u nadray inuu ilaahay subxana wa tacaala diintiisa faafiyo cabdullahi ibnu musani ayaa isnaad saxiixa wuxuu ku warinayaa abubakar dadka muu dheerayn salaad iyo soon laakiin waxa uu dheeraa wax qalbigiisa ku degay oo iimaan ah iimaanka ayaana ku filan qofka wuu ka iimaan badnaa dadka abubakar intaa kumuu ekaan bal waxa uu ahaa nin aaminay markii uu islaamay in mas-uuliyada ka saaran tahay dacwadda markii uu islaamka soo galay waxyaabihii ugu horeeyay uu qaaday inuu laa ilaaha illa allah dadka gaadhsiiyo ayay ahayd abubakar radia allahu canhu wa ardaah iyadoo aan cidi u dirin abubakar markii uu ka baxay nabiga sala allahu calayhi wasalam agtiisa uu ka baxay ee uu islaamay waxa uu bilaabay waa islaamidii ugu horeysay waxa uu bilaabay inuu diinta faafiyo wuxuu u tegay saaxiibadii ugu dhowdhowaa isaga ayuu u tegay waxa uu mid kasta isku dayay inuu ku qanciyo inuu islaamka soo galo inuu diinta faafiyo ayuu mar kasta mas-uuliyadiisu ahayd isagoo iimaan dhab ah qalbiga ku sida ayuu baxay ilaahay subxana wa tacaalana wuxuu kusoo guuleeyey 6 ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyey in ilaahay gacantiisa uu kusoo hanuuniyey oo abubakar maalinta qiyaamo uu iman doono isaga oo miisaankiisa ay saaran tahay ajarkii ay shaqaysteen 6 ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyey subxaan allah wax aad u qiimo badan weeye waxa gacantiisa kusoo islaamay Uthman ibn Affan waxa gacantiisa kusoo islaamay Talha ibn Zubayr waxa Talha ibn Ubaydillah waxa gacantiisa kusoo islaamay Az-Zubayr ibn Al-Awwam waxa gacantiisa kusoo islaamay Sa'd ibn Abi Waqqas waxa gacantiisa kusoo islaamay Abdurrahman ibn Auf waxa gacantiisa kusoo islaamay Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhum wa ardaahum miyad aragteen qof islaamka ugu hiiliyey ama wax u taray sida abubakar wax u taray miyaad aragteen qof miisaankiisa maalinta qiyaame dadka qiimaha badan ay iman doonaan abubakar waxaa suuragal ah markii uu dacwada u baxayey diinta faafinayey hamiga iyo warwarka diintan uu qaadayey in aanuba xafidsanayn wax dhowr aayadood mooye wax kalena aanu xafidsanayn laakiin wuxuu aaminay ama uu ogaa waxa laga yaabaa inaanu dhageysan ajalado sida aad ugu dhageysatay waxa laga yaabaa muxaadaraad badan inaanu xaadirin sida aad u xaadirtay waxa laga yaabaa duruus badan oo aad qaadatay inaanu qaadan laakiin markasta waxa uu aaminsanaa in mas'uuliyadda dacwadu ay tahay mas'uuliyad qofka saaran waxa uu aaminsanaa ama uu ku dhaqmayay xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri ballighu anni walaw aayadna ha ahaatay dadka iga gaarsiiya mas'uuliyadda caynkaas ah ee uu qaaday ayaynu ka baranaynaa qisadan walaalayaal waxa aynu ka qaadanaynaa insha Allahna Abu Bakar mar dambena wuu isdul taagi doonaa mawaaqiftiisii qaar ka mid ah dacwada iyo khayr faafintu inaanay u oolin ama aynu ku koobnayn nin sheekha ama sheekh hebel la yiraahdo qof kasta مسؤولية دعوة إنه سيدو آياتنا ها أهاته وحا تقاند آد فهنسنتهي إن آد إلهي سبحانه وتعالى آد يدقو إلهي درتي أولا هذا آد أمدا كارسيسي
dadkan aad badbaadinaysid ama aad naar ka badbaadinaysid ajarkooda waa lagu qorayaa. dacwadu waa mas-uuliyad qof kasta saaran. waxa aynu ka baranaynaa abubakar radiyallahu canhu jacaylka uu qabay ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa in ay jacayl kasta ka sareeyeen. waxaynu abubakar ka qaadanaynaa khayrka iyo wanaagga aynu doonayno ummadda inaynu gaarsiino ehelkeenu inay ugu horeeyaan. wa andir cashiirataka alaqrabiin, alaqrabuuna awlaa bilmacruuf. dadka qaraabada ah ayaa ugu mudan dadka marka hore khayrka iyo wanaagga la siiyo ama loo sheego. waayo kuma farxaysid aabbo, hooyo, walaal, eedo, habaryar naarta ku jirta adiguna aad jannada ku nimcaysanaysid. waa hubaal inaanay nimcadaadu dhammaystirnayn. waa inaad markaa iyaga khayrka iyo wanaagga gaadhsiisaa. laakiin khasab ma aha in hanuunku qalbigooda uu gacantaada ku galo. waayo hanuunka innaka laa tahdii man axbabt, rasuulka sal slam wuxuu ku guuldaraystay inuu adeerkiisoo hanuuniyo. bal nebiye ilaahay baa ubadkoodii iyo xaasaskoodii ku guuldaraystay. laakiin fariinta gaadhsiinteedu waa mas-uuliyadaada. adigaa awooda. diinta ilaahay inuu qofka qalbigiisa geliyana waa hawl kale oo adiga kuma taalo. maa calayka ila albalaaq. adiga wax aan gaadhsiin ahayn kuma saarna. waxaynu ka baranaynaa in aynu ubadkeenna iyo dadkeennaba ku tarbiyadayno oo barno jiilka quruxda badan ee saxaabada ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo waqtigii waxyigu soo degayay joogay sidii ay diinta u qaadeen hamigeedana u sideen ilaahayna subxaanahu wa ta'ala gacantooda uu inagu soo gaarsiiyay. waxaynu ka baranaynaa ummadda sida ugu soo shaqaysay dacwadda in aynu markasta nidhaahno ilaahay ha ka raali noqdo oo aynu ka fogaano cidda cayda ee aflagaadaysa ee shiicada ugu horeyso. waxaynu ka baranaynaa in diintan cidii ay u soo halgantay heerna soo gaadhsiisay halyeeyana ay leedahay. halyeeyadaasina ay noqon doonaan ama la doonayaba in ay noqdaan cidda ay ku dayanayaan ubadkeennu ama ay ka qaadanayaan habnololeedkooda. waxaa cajiib ah hooyo ka mida macallimiinta ka mida rawdada dhiga ayaa waxa ay tidhi, waxaan weydiiyey hablihii reeraaye aan hayay ayaan waxaan ku idhi waxaad iiga warantaan qof waliba waxa uu doonaya inuu noqdo marka uu weynaado. inan yarbaa waxay ku tidhi waxaan doonayaa saxaabiyad inaan noqdo. markii aan waraystayna waxay ii sheegtay habeen kasta intaanay seexan inay hooyadeed uga sheekayso qiso ka mida qisadii saxaabada. maxaa ku beermay ilmahan? jacaylka saxaabada. taasaa laynaga doonayaa ama mas-uuliyadda ina saaran ay tahay. insha allah intaynu xalqada xigta ku kulmayno waxaan kaga tegayaa salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.